السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جود أهم بوح السلام يا ددوينها كل قند قلنا محمود هيبة. سيدا كور قبتها وبلن كأنه ها وبل وطن بيصة خبيث وطن بيصة بل سيدي ينوي استعمار كعاصمة هرقيسي وحبلن كأنه هاين في دور كمجال ذي كروقات وقروح ذا مجال ذا نخش غينه وحيابها جوشة إنه هذه لهيدا سكر دني إنه مكمل على النبي كم من نقطي وحين نقطي برنامج واره والتراده سيدي عدد وهايد وحال كان مريا iskaashatooyinkii uradii bulshada dabdamiskii dadweynihii xaafadda iyo dhammaan shirkadihii degmada ku yaalay oo gaadiid iyo waxaan dhadaa agab soo diray marka degmadu ay sidaas ugu tashato ayaa hadii ilaahay la gaaraysa yoolkeeda iyo meesha ay u leedahay waxa hadii ilaahay ballankeenu yahay inaynu cashiishka aynu birta aynu la doonayno gaarsiino oo inuu siiro digri ka dhigno si hadii ilaahay aan dib loo arag xash dambe dhowrka iyo biicda caasimada wixii anaga naga agsan degmo ahaan sidaan horeba u baranay warbaahinta waxa noo qorshaysan saddex goobood oo ku yaala degmada kuwaas oo aragnay nidaamka kooxda marka oo ay saacad tahay iyo wax yar hadda ayaan hawsha bilaabanaa ilaa inta ay qaadanaysaa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم maanta way tahay maalin ballaaran maalin farxadeed maalin aynu ka qayb qaadanayno nadaafadda degmada Maxamuud Haybe waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan dadweynaha xaafadda oo na soo ajiibay haday ururiyihiin haday yihiin ciidamada kala duwan qaybahooda haday yihiin ururada raydka dhismaha waxaan haday yihiin cisbitaalada dhammaantood waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan waxaan leenahay barbarka ka baxda waa bakayla qaleen aad baad ugu mahadsantiin sida wanaagsan ee noogala soo qayb gasheen waa intaas oo loogala sii dhawaado maanta iyo maalintaynu bilownay bilicda caasimada inta u dhaxaysa farqigeeda weydin dareemi kartaan waxaan leenahay wada jir baa guulaysta baan leenahay annaguna garabkiina aanu taaganahay idinkuna garabkaygaanu idinka eegaynaa guul baan inoo rajaynayaa waxaa halkan nagala soo qayb galay dhowr iyo 10 ururadaasi jaayisa gaar ah bay nagu leeyihiin sida ay mudnaanta u kala leeyihiin insha Allah taala waan u siin doonaa waxaanaanu leenahay mar qura hanagaga tagina oo hanagaga harina hawsha waanaanu abaal marin doonaa sida u kala mudantihiin gudoomiyaha degmada xildhibaanka xogayaha aniga waa arrimaha bulshada iyo nabadgelyada intayaduba waxaanu diyaar u noonu heeganunayay shaqaalaweynii degmadu inaanu saaka hawlgal ballaaran oo aan ku midaysanay ka furilo degmada goobo uu noo asteeyay gudoomiyaha degmadu marka insha Allah taala ururada waan salaamayaa aad iyo aad baan soo dhaweynayaa sida ay shantii subaxnimo noogu soo fayleen insha Allah taala ilaahayna way idin keenay annaguna wixii aanu idin kari karro waan insha Allah taala waan idin la qaban doonaa